ilaahay daartan aakhira wixii uu kuugu talagalay ku dadaal oo dalab adduunka inta aad joogto isaga waqti ku bixi isaga maalkaaga ku bixi isaga caqligaaga ku bixi isaga fursadaada ku bixi isaga inta u badan awqaadaada ku bixi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكرك لبعض إن عاوة برانينو وأذكار كصابسا أما دعاء كصابسا حلقة أرورتي إلا أغرستو إيا قلبتي لبضبا إلا أغرستو والله يرسد أكتهين بنبي إنه عليه الصلاة والسلام وحيري الدعاء هو العبادة دعاء هو عباده دعاء وحيلامتها هي صلاة أن تكنينو دعاء وحيلامتها هي قرآن كأن أغرسنينو دعاء وحيلامتها هي صدقة أن بحنينو ducadu waxay la mid tahay zakada aan bixinayno ducadu waxay la mid tahay qaraabo xiriirinta aan qaraabada xiriirinayno ayay la mid tahay ducadu waxay la mid tahay meydka iyo janaasada aan ka qayb galayno ayay la mid tahay ducadu waxay la mid tahay wax kasta oo wanaaga ama birri ah ama samafal ah oon samayna ayay ducadu la mid tahay saa darteed waxaa muhiim ah qofka muslimkiihi waa qof aan ka dhergin marnaba khayrka kama dhergo muslimka mu'minku marnaba khayr kama dhergo walaalayaal waxaan u baahannahay inaan khayr ka badsanno waxayna sugaya safar dheer oon lahayn sahay qaadasho kale ilaa ilaahay cibaadadiisa mooyaane cibaadada ilaahay waxaa ka mid ah ilaahay waa inoo fududeeyey diinteennu waa inagii soo sheegnay darsigeennii xalay diinteennu waa fudayd ina addiina yusrun walan yushaada addiina ilaa ghalabatu diinku waa fudayd iskumana adkayo qof bini aadamka ka mida diinkan oo iskuma dhibo ku dhaqankeeda tadbiiqinteeda aqrisashadeeda barashadeeda iskuma dhiba ilaa way ka qaalib noqonaysaa waxaa lagaaga baahan yahay walaalka muslimka ohu waxaa lagaaga baahan yahay mar haddaad sidaa ogaatay waxaa lagaaga baahan yahay inaad diintan tartiib tartiib uga faa'iidaysato adoon isdhibaynin adoon walaalkaa ku dhibaynin adoon qof deriskaaga ah ku dhibaynin inaad uga faa'iidaysato marka nabigeenu waa ka u leeyahay sadiduu waqaaribuu fududaysta oo dhadhawaysta ayuu leeyahay nebigu alayhi salaatu wasalaam waxaana ku dadaashaan buu nebigu yidhi xilli galabtii ana inaad cibaadada u carrawdaan aroortiina aad cibaadada iyo khayraadka u kalahdaan iyo masaajidada iyo daacaadka iyo jamaacadka aad u kalahdaan nabigeenu sala allahu calayhi wasalam saasuu ina leeyahay mucallim buu ahaa nabigeenu mucallim wuxuu ahaa dadka bara wanaagga bara diinta aan ku adkaynin ee diinta u fududeeya bishaareeya ayuu ahaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aan dadka ku cuslaynin diinta innagana waxaa laynaga rabaa dhaqankii nebi maxamed inaan yeelanno waayo ummaddii nebi maxamed ayaynu nahay ummaddii nebi maxamed haddaynu nahayna waa inaan ku dayanno nabigeeni calayhi salaatu wasalaam waa inaan ku dayanno ambiyadii iyo dhaqankii ay diintan u soo mareen innaguna waa inaan raadki raacno caawa marka waxaan darsigeennu uu ku saabsan yahay ducada hal duco oo aroortiina la akhristo galabtiina la akhristo halkaa duca waxa weeyaa nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhihi jiray markuu waagu u baryo allahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka annushuur riwaayooyinka qaarkood waxaa ku sugnaa wa ilayka almasiir meesha wa ilayka annushuur waxaa ku sugnaa wa ilayka almasiir aan ku celinno ilaa 3 jeer iyo 4 jeer ayaan ku celinaynaa si dadku ay u xifdiyaan وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير لا وضع يسوع أروي رواية وكي إلهي قرآن كيسا كلها إن إلى ربك رجعا نقدك وإلهي حقي سنبو أحاضي الله حقي سنبو الله من دونا اللهم بيضتك أوضا الله من دونا كل ديدا وما أنت عبادتي سكعرسا إيا كو أقل بإلهي حقي سنبو الله وضا الله من دونا مركا ولا لا يلوى إنه دينتين كفا إيدي سنو دينتين وحي لمتهي قد ماشا قضا أو وحولي بدحيا الله أو قارئة dahabkii baa dhex yaalla kii qayrinka ahaa kii la hagaajiyey ayaa ka buuxa waxaa dhex yaalla godka fidadii ayaa dhex taalla iyo zulfaagii ayaa dhex yaalla waxaa dhex yaalla wax kasta oo dheeman ah oo qaali ah ayaa dhex yaalla adiga marka intaad godkaa gasha cidina kuu xisaabin mayse ka soo guro un macdanta iyo waxyaabaha qaaliga ah lacagtii baa dhex taalla dollarkii iyo lacagihii kale oo dhan baa dhex yaalla adigu intaad gasho iyo dirham iyo diinaar iyo wax kastoo adduunka lacag taale baa dhex taalla adigu ha isku yaraynine soo qaado diintanu marka sidaa iyo si ka sii qiimo badan weeyaan diintu waa diin fudud waa diin guusheedu ay dhowdahay inay dhowdahayna waxaa daliilkuga adduunka markaad joogto way dhowdahay guusheedu wiilka barta diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee barta qur'aanka ee madaarista ka baxa waxaa laga yaabaa isagoon waalidkiisa iyo dadkiisu ku rafaadin qarashna ku bixinin inuu wax barto ilaa jaamacaadkii islaamiga aha uu soo qaato kadibna uu dadkiisii iyo naftiisaba anfaco kuwii intii iskuullada iyo jaamacaadka maadiga laga bixiyey ee caafimaadka la baray waxyaabihii adduunka noloshiisa ahaayoo dhan la barayna ee dhaqaalihii dadku lahaayeen iyo baloodadii iyo wixii dadku hanti iyo maguurto lahaayeen oo dhan lagu bixiyeyna waxaa laga yaabaa intooda badan aqlabiyadooda in yaroo ayaga ka mid a mooyaane inay haddana mar labaad gurigii lagu ilaaliyo oo loo gado wax kastoo u baahayay oo waalidkeed weli gacanta ku sii hayaan uuna istiqlaaliya samaynin laakiin dhowr qof oo laga yaaba inay ku guulaysteen oo wax un ku heleen bay dadku laga yaabaa inay diintii uga leexdaan barashadeedii
iyo waqti ku bixinteedii ayna u aadaan dhinaca kale. waxaa mudan diinta ilaahay in gacanta midigta ah iyo barashadeeda qaybta hore lagu bixiyo, awoodda ugu badan lagu bixiyo. waalidiintu dhaqaalaha ay ku bixiyaan inta ay ku bixinayaan ka maadiga ah ka badan ay ku bixiyaan diiniga wiilka u baranaya gabadha u baranaysa ay ku bixiyaan. wallahi uma wallahi canugaagood qur'aan xifdi siiso, hal tartan uu kuu galay wuxuu kuu keenayo weligii midka iskuulka akhristay kuu keeni maayo iyo maadiga bartay kuu keeni maayo. waana xaqiiqo hadda la taabtay oo la ogaaday aynu arkayno. ilmihii iskuullada bogay markay waxba qaadi waayeen inay qur'aanka ilahay intay dib ugu soo laabteen oy xifdiyeen oy tartamadii galeen lacagi iyo hantina ku heleen tii aakharana ilahay idamkiisa ay ku rajaynayaan inay ku gaadhaan. oo la yidhaahdo cagta saar jaranjarada horeyna u soco, qur'aankana sidaad u tartiibin jirtay eed u aqrin jirtay adduunka markaad joogtay u aqri lagu yidhahdo. taana waa rajo ilahay aan ka qabno inuu umniyaadkooda iyo hididiilooyinkooda iyo fikirkooda wanaagsan inuu ilaahay u dhammaystiri doono. walaalayaal, marka gabadh iyo wiilba, yar iyo weynanba, mid weynba, waxaan idin leenahay, waxaan idinku baraarujinayaa diinta rabbi subxaanahu wa tacaala barashadeeda iyo waqti ku bixinteedaba gacanta midig aan ku qabanno. gacanta midig aan ku qabanno waxay ka dhigan tahay aynu horumarino dhaqaalaheenna iyo dadaalkeennaba ayada aan ku dhinac aynu awoodda saarno. adduunyadeenni iyo iskuulladeenni iyo ganacsigeenni iyo wixii adduunya ku tacalluqana ayagana aan u kaalmaysanno. oo ilahay waa ka uu qur'aanka ku leeyahay wabtagii fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk. adduunyadii maxaa ka sameeyaa? adduunyadii ilahay wuxuu ku yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya. nasyaan iyo halmaan baa yaa laga cabiray oo waxaa lagu yidhi ha halmaami adduunyadaadii iyo inaad iskuulaadkii wax ka barato, luqooyinkii inaad barato, inaad ganacsigii samayso oodan bini aadan gacanta u horsanin. ninka culummada waxaa la rabaa inuu noqdo qof mutakaamila oo dhan walba ka dhisan ayaa la rabaa. waxaa la rabaa inuu noqdo nin isagu u gargaara dadka oo isagu dadka garab qabta inuu noqdo la rabaa. maaha inuu gacanta horsado ninka culimmadiihi, maaha inay ardadiisu wax u soo ururiyaan, maaha inay dad weynihi iyo shacabku ay wax u ururiyaan. waana midii culimmada in badan dadka qaarkood fikirka khaldan ay uga qaateen, dad aan waxba qabsanaynin, dad aan ragga kamid ahayn ay ugu maleeyeen. marka walaalayaal, intaa kale waa waano iyo wax sheeg aan ku darnay iyo baraarujin. fadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniina weeyaan intaasi. laakiin maxalu shaahidkeenna wuxuu ahaa aan caawa ugu talagalnay darsigan inaan ducadaa caawa ku baranno. ducadaas aroortii la aqriyo iyo ducada galabtiina la aqriyo. waa hal duco oo labada jeerba la aqriyo. allahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka annushuur aw wa ilayka almasiir. labada riwaayo masiir iyo nushuur labada way jiraan. waana soo macnaynay allahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka annushuur. hoosna waan idinku qori doonaa oo ducadii oo qoran baad ku arkaysaan. ha la xifdiyo, ha laga faa'iidaysto walaalayaal. xaqiiqo waxaa ah wax badan ba adoon samaynin wax yar inuu ilaahay guusha kugu raaciyo ood adduunkaagiina ku liibaanto, naftaadiina ugu liibaanto, maalkaagii ugu liibaanto, ubadkaagii ugu liibaanto, waxaad adduunka ka rabtay oo dhanna aad ka hesho, aakhiradaadiina aad ku guulaysato, miisaankii ay kuu buuxiso halkaa duceed akhriso. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey acmaasha midkee ugu khayr badan, nebi maxamedow wuxuu yidhi khayru alacmaali adwamuhaa wa in qalla. acmaasha midka ugu khayr badan waa midka la daa'imo oo qofku mar walba uu sameeyo. hal aayadoo qur'aan aad maalintii aqrin jirtay ood maalin walba aqrisaa, haddaad daa'imto waxay ka khayr badan tahay adoo qur'aanka hal mar dhameeyey laakiin farax ka qaaday intaasoo sano, intaasoo bilood aan aqrinin. hal salaad oo sunno oo ragcad ah ama laba ragcadood oo tukato ood ka caadaysato oo dhaqan ka dhigato waxay ka khayr badan tahay intaad bil rabadaan oo kala dadaashay ama bil kale aad dadaashay laakiin muddadii dambe aad faraha ka qaaday cibaadadii ilaahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas waa diinteenna, qur'aankuna waa diiday, sunnada nebi maxamed alayhi salaatu wasalaamna way diiday. marka waxaa la rabaa qofka mu'minkii inuu cibaado uu dhaqan u ah uu daa'imo inuu leeyahay. marka ducada aan daa'imayna waa maxay? xalay ducadaan soo sheegnay waad garanaysaan. dib ugu laabo cashirkeennii caawa ducadaan sheegnayna waxa weeyaan aan qaadanay waa ducadaas. allahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka annushuur. marka aan ku dadaalno walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.